munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen dadweynaha ku dhaqan xaafadda New Hargeysa ee magaalada Hargeysa oo ay ka soo qayb galeen wasiirada madaxtooyada iyo arrimaha gudaha ee Soomaaliland odayaal xildhibaano iyo waxgarad kale ayaa waxa dadweynaha ku dhaqan xaafadda New Hargeysa ay ku dhawaaqeen in ay wajiga hore ee qaranka jidka Ceergaabo iyo Burco ay ka qayb galayaan lacag dhan $100,000 iyo 120 neef oo xoolo ah munaasabadan oo aad loo soo agaasimay ayaa waxa hadal ka soo jeediyay mahadnaq wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan oo ka waramay kaalinta firfircoonida leh ay dadweynaha xaafadaasi kaga jiraan horumarka dalka asaga oo ka waramay faa'iidooyinka ballaaran ee ay wadooyinku dalka u leeyihiin isla markaasina ay yihiin adeegyada ugu horeeya ee bulshada ay u baahan tahay inay qabsadaan waxaanu aad ugu mahadnaqay dadweynihii odayaashii iyo waxgaradkii soo abaabulay xafladani oo aad iyo aad ugu mahadnaqay wasiirku haday tahay suldaanka haday tahay ugaaska haday tahay wasiirka haday tahay cuqaasha haday tahay ganacsatada intaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin وأنا قفر حسين الله سبحانه وتعالى هذه كفر حيو وهر قادين وحنو لنا هي إن شاء الله تعالى أنت كرناها كضياته أنت إنك بدنها بحسو هرجيسي والله قرنا يا هالبولها يكجتها له دلك وعاصمة دي دلك هدي عاو حافظة برجع هرجيسي أي أنت بحسي حافظة كرودنا إن شاء الله تعالى وسوقينا وصوه وبنيسا ويبلابين إن شاء الله تعالى ويباركوا بدونتا وحجاري دونتا إن بدن بيجاري دونتا قيبا كله هرجيسنا إن شاء الله تعالى شرر كودي وسوقينا سلادين تيو عقاش يدياش تشوغنا وحلينا كسر شقية أنا إن شاء الله تعالى والله كل مدونا قبل هذا يدقمون كلا ومرينا أنتي أنو مري رير سومالي لان وحنو كلا كلنا خير طلبات وحوي ودن كينو ما أنت ودسميا ودوي كانوا وين ودسينا وحسينا بلنا inaynu horumarka dalkeena ka socda iska wax u qabso sidaynu tan ugu bilowno mid walba ugu bilowno oo markaynu taa dheer ka soo jeesano kuwa kale ee muxuu ahay ka sahlan ee dhinac walba looga baahan yahay iyagana hadii la dhaqso u bilowno ayaynu rajaynaynaa